federaaleeyo heshiiskii maalin dhaweyto aad hogaaminaysay oo qalinka lagu duugay ayuu ka tarjumayaa theme-kan oo mowduucan meesha ku dhagan oo sanad walba mid baa ka tarjuma ayaan filayaa sanadkan marka federaaleynta garsoorka waa kan meel walba inkugu dhagan aad arkaysaan arintaasu marka maadaama aan u dhaqaaqnay waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo arkaya yani dadaalada ay dawladdu horkacayso oo ah Soomaalidu inay ku heshiiso garsoor federaalisi inay ku heshiiso inay dawladdu horkacdo haddiina lagu eedeeyo bal ka warrama han leeyahay bal ka warrama haddiina lagu eedeeyo dawladdii Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ma rabto waata dawladda federaalka Soomaaliya ma rabto federaal ma rabto haddiina lagu eedeeyo annagana juhdigeennii iyo dadaalkeennii isugu geynay inaan garsoorkii federaalayno oo si dadweynihii loogu daadajiyo ilaa heer dawlad hoose dawladaha xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka ahba hal nidaam oo garsoor federaalaysan ah marka waxaan leeyahay mana qabataa in eedaas mana qabataa haddaanba leenahay hal la federaaleeyo garsoorkii oo aan soo bandhigno soo jeedinay dabcan waxaan rajaynayaa wasiirka arrimaha gudaha igu horeeyay wuxuu tilmaamay hadalladana si wanaagsan loo fasiraa mar walbeetee saaxiibaday wasiirka oo Puntland arrimaha gudaha inuu yiri yani arrimahaas ulama jeedno Soomaaliya aan ka tagnay iyo waan goosanay oo madax bannaan ulama jeednay waxa ula jeednaa buu yiri inaan macnaha gilgilno oo aan mataqaanaa wax kala soo dhacno taas waa negotiation ee wada xaajood sidaasaan mataqaanaa ku fiican in loo fasiro dadweynaha Soomaaliyeed runtii dhagahooda uma fiicna mar walba in la maqashiyo in la yiraahdo dawladda Soomaaliya xiriirkan u jarno ama waan ka madax bannaanaanay annagana xukuumadan madaxweynaha jooga oo magaceedu ku hadli doonee waxa aan u taaganahay Soomaali heshiis ah oo wax walba inay ku heshiisa diyaar u ah marka hadalkayga kuma dheeraanayo waxaan rabaa inaan bogaadintaas aan soo istaagay maanta aan bogaadiyay muddada yar waan garsoorka aan la joogay caqabadaha hayana runtii wada dul istaagno oo aan leeyahay haddii wax laga wada qabto aan isugu tagno dhammaanteen bulsho iyo shacab iyo dawladdan isugu tagno inaan mataqaanaa dagaal aan ka yarayn ama juhdi aan ka yarayn lagu bixiyo midka argagixisada lagu bixinaya kaasna faa'iidada ka soo noqotay madaxweynaha ku maadsan tahay dagaalkaas aad dal ku hogaamisay oo aad argagixisada faa'iidada ka soo noqotay waxa waaye dadweynihii runtii hadda inay kalsooni ku soo qaadayaan garsoorkoodii oo qasabkii awalba kalsooni kumaysan qabin nimankaasi qasab iyo jujuub iyo cabsi gelin iyo assassinations iyo qarxin ayaa loo geynayay goobahooda marka hadda garsoorkeena inuu howlgalayo ayada laftigeedu waxay keeni kartaa fursadaas culaysay keeni kartaa oo kiisas fara badan oo awal ay aan lala imaan jirin ba hadda lala imaanaya ayada laftigeeda loo diyaar garoobo waan bogaadinayaa shirka sanadlaha ah hadalkaygana halkaas aan ku soo gabagabaynayaa